garjacayl hal la qaado. sheekada guriga waxa ay joogtay gabadhii inay markaan ay bilowday inay hingooto ooyin baa socotay habartuna maslaxay waday ay dhaysay gabadhayda iska adkayso adkaysi yeelo aabbaha waa naga xoog badiyey si kaloo aan yeela ma jirto waa kuugu ducaynayaa ninkan iska guurso gabadhaydii gabadhuna ay ooyin hoose wado ma idinka go-aan baa hadda inaad ninkan igu dartaan maxaa mustaqbalkayga qasab looga dhigayaa maajuuskayga la ii daayo maan midkaan raba la igu daro midkan aanan rabin maxaa qoorta la igu gelinayaa sheekadaa iyo sheekooyin kale ayay wada gabadhii Faadumo ahayd hooyadeed bayna markaasi ag joogtayoo ay ku ooyeysay hadda ma dhaba la igu daro waxaan reer baadiyaa ah aniga maajooskayga la ii daayo ma la ii daayo qofka aan jecelahay aniga ma la ii daayo alla ninka hadda sidee yeelaa allah ilaahayo ooy macaan maxaa la ooynaysaa adiga cawlxumaad ugu dishabay imaan waa ooynaysaa waa ninkaan aabbahaasaya lama naqaano waxaan dhahna ma naqaano si kor ula hadlo hoos ula hadlay warkayga ma ku socdo hooy maa ninkaa iska guursatid waxaan sameeya ma aqaano aniga ilaa wax kaloo dhaha ma lahane hooyadii markii intaa tiri adigii igu ronaa miyaa sidaa ay dhahayo hooya aabbo ku noqo bal tala kale ka keen maxaan sameeyaa habartiis waxay sheegtay in xataa alaabtooda jiifka la dhigay wax ka dhimanba aanay jirin xataa qaada aanay banaanka jirin wixii dhanna la keenay hadalka dhiman oo aan galayaa maxay tahay habartii Faadumaasi ka horreysay oo hadalkaa tiri hooyo maa ku noqotid aabbo maa wax ka dhaadhicisid hooyo walaa hooyo aniga noloshaan kuma faraxsani maa noloshaan raadinayo la ii daayo ilaayo walla waxaan sameeyay ma garanayo walaa hooyo aniga hooyo waan ku baryaa aabbo ku noqo wallaahi hooyo aniga oohintaada way dhibaysaa waxaan sameeya ma aqaan laakiin waxaan kuu sheegaya inuu gurigaas xataa qaado ka dhinneen middaa ina aniga aabbaha isku dayr kala tagayna maahan xal kale oo lahaayo ma lahan gurigaas qaado xataa kama dhinno wuu dhammaystiran yahay anna waxaan ka qaban kara malacaa walaale hadda arrintaasay tahay ogow intaa haddaa anigii aabbaha inaan ku kala tagno mooyo wax kaloo dhiman male markii la yidhi ayay gabadhii hooyadeed feerin ugu noqotay aabbii adiga inaad kala tagtaan ka talin maayo laakiin taladeeda anaa aabbe iyo ula tegi doona iyo midkan la isiiyaba wixii aan dhihi lahaaba hooyo tala anay markaan ii talla go-aan kaley qaadatay kaasoo ahaa hooyaday iyo aabbahay ma kala geynayo mana kala geyn karo waayo waa laygu soo tiiray tacabeele intaana layla soo okeysiiyey hadal waalidna ma diidi karo aabahayna kuma hadal celin karo laakiin talaana ay jirtaa waxaan sameynayo anaa garanaya hadalku markuu intaa maraya ayaa dhagaheeda markiiba waxaa kusoo dhacay hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa jacaylkana way hayaa eryada macmacaan oo qatrada hare ku luuqeynaysay ayay markaasi dhagaheedu maqlayeen kuwaasoo ahaa waaqici markaa ayada haysta hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa aydarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu heestii goortii ay sii dhammaanaysay ayay waxay aragtay aabbaheed iyo wiilka adeerkeed dhalay oo isla fadhiyeen oo qosolka ka baxaya aadan malayn karin ayaguna waa qoslayaan way farxayaan aniguna murug baa weheliya hadaladeeda ka mid ahaa ilaahay amarkiis wuu qosolkooda baxayaba aabahay ma dareemi kara qalbigayga waxaa ka guuxaya waxaan qofkaan dhaadhaankaana suu u faraxsan yahay wallaahi ma garanayo waxaan sameeyaa aniga adeerkeeyow aniga qafankaa jeclahay male saan raba waa ii yeeshay adna saan rabtaan kuu yeelaa dhib male gabartaan anigoon jajuubinan eebow ka keenaya iska dhaaf hadalka goortuu intaa marayo oo duqiina tagay kiina keligii geed qabo hoostiis fadhiyo ayay mar kale soo ag fadhiisatay indhahay ka fiiraday iyadoo weliba hoos kala hadlayso oo makanan marwadiisa noqonayaa abooyow maxaan dhahaa waxaan sameeya ma aqaan waanay u qamuyoonayso waa u qoslaysay iyadoo isaga dhigaysa markaas in wax walbaaba najax ay yihiin sheekadii hoosay ka lahayd iyo ariga kala kuwan ilaahay amarkiis kan daacadaan iskaga dhigaa sugbo oo faraxsan yahay waa kama qasno
ma dareemi karo qalbigayga xanuunka ka gooxaya sug balaan u tagay abbaayay haye afkiisa la fiirso qosla ciilka qabanay ma ogo gabartaan rabe inaan kugu badashaan jeclaa laakiin adeerkay waa soo taagan yahay ani 4 saac gabadhan jeclay leedahay war gabadhaas ma isku guursatid maxaa ani ka daba dhigay adaa la igu kaa qasbo waaya qandho foolxumo badan foolxumadeeda iska ahaadee adbayga ma liidatide aawa kaal horta kaale kan dhan waa dacayna horta midaan kuu sheega haye haddii xataa lay kaa guri geeyo agtaada soo jiifa maayo aniga ha soo jiifan qolka fadhiga iska sixaa adeerkayna ii sheegi qol fadhiyana maxba kama taqaanide weligaana fadhi ma arkine kan horta daacayo isku kululeeyana waxba ima sameynaayo horta kaale wax sheeka ku sheega waxaas iska dhaafe adiga day ha isa sabana day warkayga horta dhagayso hala aniga ma fahmaysid adi maxaan kugu sameynaa xalay gabartaan jeclaaya ayay soo wacday aniga dhawaa qaad baan ku dhahay markaasaa foolxumadaada lay horkeena markaan taleefonka iyadii ka baxdeen adoogaa maa u sheegtidoo ninkaan ma raba maa dhahay adi daraad ma dhihino adoogaa waa u tagaasaan dhahaasa saxaa u dhihi weysa waa iga diiday wax oo kaa diida ma lahan haddana agteyda ka kacay fiiri nagnagta intaa iska daysaan wax walba a ku hadlaysa waa maqlaaye hadda intaa u tagtid u sheeg gabadhaada ma raba waa igu durqinaya way faaluxunta ku dheh aabe raac anaa ku tusaayo soo baxee nawad nakeen haddaanan dhihin waxaa dhihi kartid malaniyo anoo kala noqomaysid allana kaama dhiginay war haddaanan dhihin wejigaas falxumada badan ee kugu yaalloo kale car haddee habar ku dhasha dhehe car say u taalday sida loo sii socday ayaa duqii la ag tegey goortii la ag tegay ayuu bilaabayba hadalkii adeerkayow adaan kuu socdaa adduunyada horta waxa la yidhahdaa qasab waa laga fiican yahay gabartaan adiga aad dhashayna inaa iga dhaaftaan jeclaala warkaas ayadaa kaa soo dhaadhicday soo maaha anaa rabtan inay cebaysaan go-aanka aan gaara waryaa waa sidan u gaara qof diidi karaana ma leh aabbaayay ka waranay saas ma ahane si kale u dheh gabadhaada way faaluxuntaa ma doonaya dheh waa dhaha dhehe adeerow horta kan waa diri karaabe hadda adeerow waxaa fiican horta warka si fiican u dhegayso labadii qofoo isu qalmaan la isku daraa adeerow gabartaana waa u jeedaa baaquli macdan oo buusbuusmaad u muddaa ninkay rabtay iska sii anigana iga dhaaf waa tanaho meelahaas ku anayba idhahe kuma raba idha ana ma raba iga dhaaf aaba waa maqloosaa araghay aabe indhahaaga wax kuma qale uu caynaa maalin dhaweeto ku dhahay qofkani caynaya see u guursanayaan ku dhahay hadhowta wixii ka yimaada ka warnaan ku dhahay kuma cayn karaa idhaahday hadda soo dhagaaga kuma maqlaysid aabo gabadhaydi aabo anigu wiilkan waxaan dhoo ma didi karo aabo waa maqlayso ma caynaya aaba waxaana waa adiga iyo hooyada iyo isaga waxaad ka soo dhaadhiciseen anigaa rabtaan marada iga ridaan aaba ani waan ku jeclahay waalidkayaa tahay marna kaama ridayo aaba aniga waxaan idin maradaa lay celiya nin weynoo magac iyo maamuus beledka kulahaa marada ayaan layga ridin maradaa lay celiya qofkan aaba igu tilmaamaya baaquli buusbuusmay beri markaa guri ii geysidne nay dhagayso horta aye aabo haddaad guri isu tagtaan haddaad waxaa rabtaan sameeya aye aniga laakiin nin dadka dhexdooda sharaf iyo maamuus kula bana go-aan baan dhex geeyo gur baan dhex geeyo inaan iskiisiyana waa sheega walaalkayna hadalkaas ballan baan kaga qaaday aye aabo meerkaa wuu dhacayaa hadal waalid ma diidi karo ee gabadhayda ma kuu duceeyaa mase waa ku inkaara aisha maya aabo ani ducadaada intaan soo gaarsiisay inaa dhammaadna inaan gaaraan rabaa aabo ducadaada kama maarmo mar walbo saasaan kaa rabaa duca qabtaa tahay wiilka waa rabaa idhe haye aabo aniga hadalkaaga ma diidi karo wax walba oo adi aad ila soo jeclaato ila soo gaclootana waxba kama keeni karo aabo waaye maasha allah waa islaanta aawe warka waa dhegaysanaysa waa kuu jeedaa dhagdheer baa lagu dhahay soo ma maqlaysid haye xaaji soo ma maqlaysid gabadhayda horta gabadhayda raalli ma ahee way oynaysaa waa ujeedaa laakiin dahab gaarana waa loo gadayaa gabadhayda oo weliba magaceeda ku qoran gabadhayda dahab ma rabtee kulleyba oon iska cawlxun tahaye adigu madax adeegaaga heerkaan ku gaartay bal aragna guurkan suu noqdo adigu markaad tan ka soo jeesta hadalkaaga u soo jeesanaya kowdhi gabadhayda hadda waa heshini haye ayada iyo wiilkay soo aragda ha sheekaystaane labadooda isu daana keen haye nawad goortii la kala tegay ayaa gabadhii saaxiibteedahayd telefoon usoo dirtay gabadhii waa filsan waxayba maqashay gabadhii ooyeysa ilin hoosena ay ka socoto sheeka waa dhammaatay faysal waa u dhammaatay banaanku markaan ku dhacayaa miyaa aniga faysal miyaan ka hari karaa maxaan sameeyaa calaacal iyo ooyin teleefonkii ayayna filsanna ka maqlaysa halo halo saaxiib maxaa kugu dhacay saaxiib ay warma ii yaalo wallaahi bilaa saaka sheekada baraka male mare saaxiib horta ha ooyina aamus alxamdulilah
tan idar fiican waayo maxaa hoos ka dhawaysaa aniga wateena neesatahay maxaa hoos ka aqrinaysaa saaxiib waxba waa calool xumooda keliya ooyintaada markaa maqlay calool xumun saas maane soo daa warka ii soo wacad ii sheeg maxaan ku sheegaa saaxiib see ii taha horta maxaa la ooyeysaa ka aabaha ugu dambeyn muxuu ku dhahay saaxiib warmaysid kii dhaadhaanka ahaa aabee waa igu dara rabaa maanta meherkeenii baa dhacaya gurigii xitaa waa la sharxay dad baa dhoodhooban na alla adaada ma ahana inaa faysal jecelna ogtay maxaa waa laase